wanaagsan saaxiibayaal meel walba maqalkaygu idinka soo gaarayo waa barnaamijkeenii codka Oblasin baa Soomaali. Alaaba barnaamijkan waxaan kaga hadalnaa arrimaha ganacsiga khaasatan online iyo faa'iidadiisa. Waa qaybtii 11aad ee season 2. Waxaad wareysigan iyo wareysiyadii hore aad ka heli kartaan kanaalka Maariya Xuseen. Sidoo kale waxaad naga dhageysanaysaan adeega podcast-ka. Caawa waxay la joogtaa Fatxiye Jaamac oo si gaar ah ugu casuuman podcast-ka. Aad baan ugu faraxsanahay inaynu ismaqalno adna igala qayb qaadato barnaamijkan podcast-ka. Fatxiye waa hooyo guulo badan ka samaysay online-ka, dadaalo badanna ku jirta sidii uga faa'iideyn lahayd walaalo Soomaaliyeed. Fatxiye waxay nala wadaagaysaa fursad weyn oo ay haleeshay runtiina ay ka samaysay dhaqaale aad u badan waliba online-ka maadaama online-ku ku jiro fursadaha weyn ee waqtigan jira. Ugu horreyn kusoo dhow walaasha codka Oblasin baa Soomaali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماريا ولا شيء والمهتم تأسيسات إيجوسو مرتقادة بودكاستيجا رالي يبرد ما شاء الله يعني هاي إلهي هورها نوصي سيدي هورا إيجو سو شيكت ولا شيء ماريا مقعيقة فتحية جامعة علي أيالا إلهدا وحنكون لها ودك كندا خاصة قبل كيبيك المجال دقاتينو وحن aan ka soo jeedaa jaaliyada dhinacaas ee Djibouti anigoo halkaa noloshayda oo dhan kuna soo dhashay kuna soo barbaaray waqti dhaxaad imid wadankan Canada taas oo igu kaliftay arrimaha horumarka iyo madaragta immigration-ka iyo waxaas aan u jeclaysintan wadankan aan u soo guuro markaasi waxaan ahay hooyo oo laba ciyaal leh jaamacadda Djibouti ka soo baxday kulliyadda dhaqaalaha iyo maareynta waxaan ku noolahay muddo hadda 8 sano ah wadanka Canada maasha Allah dunidii maanta waxay u wada jeesatay dhankaas iyo online teknolojiyadda iyo casriyadeeda ayaa ay madaragtay adduunkan ay u soo wada jeesteen marka walaashay Maariya waxaan jeclaysanay inaan falaqayno madaragtay arrimaha online-ka oo xiiso badan adduunka maanta kaga jira aad baa u mahadsantahay walaasha Fatxiye waqtigaaga aad u kooban inaad nooga faa'iideyso fursadan aad haleeshay maadaama dad badan ay dhageysanayaan una baahan yihiin fursadan inay wax badan ka ogaadaan wuxuu yahay kamid Oblas Global Oblas Global waa company Canadian oo ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada company-gaas oo laga aasaasay dalka sanadku markuu ahaa 2005 company-gani waa company aad iyo aad dunida ugu faafay hadda oo soo saara product iyo heer sare ah taas oo anigu ku soo biiray sanadku markuu ahaa 2021 September xilligii ay ahayd 2020-keygii hadda waxaa laga joogaa sanad iyo hal bil ah inta aan ku jiro company-gan codkiisa waa igu soo noqnoqday laakiin qaraarkii ugu dambeeyay qaatay waxay ahayd sanadkii hore September markaas company-gani waa company aad iyo aad qiimadiisu u sareyso oo online-ka qaybo badan kaga jira hadday affiliate marketing hadday ahaato dropshipping waxa la yiraahdo oo maad aragtay aan idisi faahfaahin doono hadhow yar hadday ahaato maad aragtay product quality haddaan si kala saaro waxa ay company-gani ay u kala qaybsamaan product soo saarid iyo maad aragtay dhaqaale ka sameyn dadka productiga customer ahaan u soo galaan dadka dhaqaalaha ka sameeyana sidoo kale product iyo qiimo dhaqaale ay ka sameeyaan dhaqaalahani haddaba sidoo u si kala baxbaxo haddaan wax yar isdul taago madaragtay waxa weeyaan generational ilmihii dhaxal gal weeyaan oo waxaad u sii dhigaysaa dhaxal ahaan ciyaalkiisa waayo company-gan hadduu oo qof ka sameeyo dhaqaale laga yaabo intii waa ciyaalkaaguna ay ka faa'iideystaan dadka dunida maanta waxa ay khaasatan inflation-kii iyo sicir bararkii oo kor u kacay daraadeed waxa ay fursado ka raadinayaan sida online-ka iyo qaababka looga shaqeysto company-gan wuxuu fududeeyay adigoo product-giina ka helaya aan shaqeysan kartid
maad aragtay taas oo lagu siinayo linki adiga kuu khaasa oo dukaan aad ka furatay online-ka oo alaabtaada ku dhex iibinayso dukaankaasi meel kasta oo internet adduunka kaga jiro haddii aad la fariisatid mobilekaaga waad kaga iibin kartaa waanad ka faa'iidaysan kartaa alaabtaadana waad ku soo dejisan kartaa waddan alla waddanka aad joogto xeerarka waddankaasi uu leeyahay hadduu fududaynaayo waqtigan maadaamaaynu ognahay in horumar ballaaran uu jiro online-kuna uu yahay meelaha ugu horeeya ee dad badan ka faa'iideen haddii waxbarasho noqon lahayd haddii dhaqaalo noqon lahayd iyo haddii ganacsi noqon lahaydba sidee looga faa'iidaysan karaa suuqa online-ka maadaama uu horumar badan ee dad badanna ka sameynayaan suuqa online-ka maanta waa suuq aad iyo aad maad aragtay xawli ku socda dadku waxaan jeclaysan lahayn inay indhahooga furaan oo dhanka online-ka soo jeestaan iyo teknolojiyadda iyo qaababka loo isticmaalo online-ka qaab fiican qofka rabo oo inuu tacliin xataa ka barto inuu maad aragtay master degree online wax kasta uu ka soo barto online-ka waa fududay sidoo kale dhaqaalihiina waa fududay iminka dhaqaalahan sida looga faa'iidaysan karaa waxa weeyaan adigoo dukaan online furta oo dukaankaaga alaabta ku soo xayeysiisa qaababka fududaysay inaad soo xayeysiiso waxaa ka mid ah social media oo la soo dhigan karo alaabihii aad rabtay ina aad dadka tusto indhahooga maadaama social media maanta caalamka oo dhan ay dadku iskula xidhiidhaan sida facebooka instagramka tiktoka snapchatka qaababkii awalkii hore markii hore waxa loo sameeyay sida ay dadku isla xiriiraan awalkii hore telefoon iyo warqado la isku diro uun bay ahayd markii dambe dadku waxay u isticmaali jireen in ay just message-yada ku kala weydaarsadaan iminka laakiin kambaniyadii waxay garteen inay indhihii adduunyadii ay ku jeesatay online iyo internet markaas kambaniyadii waxay soo hordhigaan indhihii dadka isticmaalaya facebooka internetka instagramka iyo wixii internetka social media ku jiro oo dhan inay soo hordhigaan productigooda sida ahaan buu kambanigana oo productigiisa u xayeysiiya oo loogu xayeysiisan karaa meel alla meel adduunka ka joogta ee internetkaasi oo ka shaqeynayo taas oo maad aragtay advertisement-nada marka aan daawanayno facebooka in soo hormaro oo dhan kambaniya ku xayeysiisanay sidaas weeyaan ayuu qofku uga shaqeysan karaa qofkii click siiya ee alaabtii halkaa ka iibsaday ee ka jaleeca commission ayaa u soo dhacaya commissionkaas oo ku ururaya oo maad aragtay aad ka saaran kartid bil waliba oo faa'iido badan familkaaga iyo adigaba aad ka heli kartid taasaa oran lahaa maasha allah waxaan rajeynayaa dad badan inay ka faa'iideen xogtaa kooban aad siisay iyo faa'iidada ku jirta waqtigan online-ka goormaad kusoo biirtay kambaniga Oblas Global Fadxiye sanadkii hore 2021 bishii ayaan kusoo biiray laakiin degaha Oblos ilamaa iyo 2018 xilligii oo maad aragtay ay walaalihiina Soomaaliya soo galeen ayuu degteeda kasii muuqanayay laakiin markaa xirfad gaar ah uma lahayn waxaan lahaa online sidee baa looga shaqeysan karaa waa su'aalo madaxayga ku soo noqon ay dad kalena ay isweydiin karaan hadda sidee online anaga waxaan garanaynaa shaqo oo loo kalaho xafiis la fariisto shaqo oo adigu gurigaaga jooga laga shaqeysan karo dad badan maanta dunida maba aaminsanaba laakiin waxa ay indhaha dadka kala furtay koronihii markuu ku dhacay adduunidii oo dhan ay kala wada xirantay ina online-kii markii hore aan la fahamsanin ay dadkii fahmad si khaas ah ay indhahooda ugu soo wada jeesteen internetkii markaas aniga waqtigaas hore waxaan lahaa qaabkee looga shaqeysan karaa internet waaba yaabe waan isweydiinayay markii dambe laakiin internetkii iyo maad aragtay koronihii dadkii ku dhacay internetkii dunidii kusoo jeestay of course aniguna waxa ay noqotay wixii in real noqdaba run noqdaba oon maad aragtay oon aragno midhihii dadkii ka shaqeysanayay online-ka halkee laga heli karaa kambaniga Oblas Global
company-ga Oblast Global waxa laga heli karaa internetka meel kasta oo internet ku jiro taas waxay ka dhigan tahay macnaheedu xafiiska laga maamulo waxa ay ku taalaa Toronto laakiin xafiisyo yaryar oo maaragtay Asia oo wadano badan oo ku kala leeyahay ayuu leeyahay laakiin meel kasta oo internet oo ku jiro oo kasta waana laga heli karaa waana laga iibsan karaa waa dibna waa looga iibin karaa it means qof kasta oo company-ga ku soo biira link u qaata ayaa la siinayaa linkigaas oo ay tahay aniga waa sida wadan kasta in dhex joogo wuxuu isiinayaa citizenship Soomaa wax ani ii khaas identity ani ii khaas kaasna company-gu wuxuu bixinayaa linki oo click marka lagu siiyo dadka internetka yaqaan way garanayaan oo toos ku geynay meesha alaabta lagu iibinayo markaas aad internetka macluumaadkaaga aad galiso kadib company-gu wuxuu kugu keenayaa meeshii aad codsatay ee gurigaaga ahaa waa e-commerce qof walba uu furan oo linki ka dhex samaysan karo linkigiisana runtii uu horumar ka samayn karo oo una fududeynaya website diyaarsan alaab diyaarsan iyo inuu dhaqaale si fudud uga sameeyo Soomaaliya ku jirtaa wadamada dhaqaalaha laga sameeyo company-gu ka howlgalo Ethiopia qofka hadduu ku soo dirsado Kenya iyo Djibouti saddexda wadan ee u jaara ayaa la geyn karaa markaana xawaaladihii hoose ee Soomaalidu lahayd ayaa qofka gurigiisa ugu horkeenaysa ee wadanka Soomaaliya oo ku noolaa qofka sidaan ogahay waxa tahay hooyo caruur korinaysa dadaalo badan ku jirta sidoo kale horumar badan ka sameysay online-ka dhexdiisa arintaasi sidee bay kugu suurta gashay maadaama ay dhageysan doonaan hooyooyin sidaadoo kala halgan ku jira dadaalo fara badan ku jira rabana inay ka ganacsadaan ama horumar ka sameeyaan tiknoolajiyada iyo horumarka hadda jira sidee bay kugu suurta gashay arinkaas ما شاء الله waxaan oran lahaa nicmadaas Ilaahay ayay ka timiday nicmadaas oo Ilaahay fududeynteeda oo kulli leeyahay insha Allah maamooyinka adduunka iga maqlaan waxa oran lahaa online maanta waa online maanta waa jira waa wax tooso wixii cusub caalamka jecel baan maanta tiknoolajiyada caalamka jecel markaas ninkii soo saarayna maxad gaar u leeyahay caalamka jecel marka fududeynta waxa ay maamulkani waxay u baahan yihiin dhaqaale waxay u baahan yihiin in wax laga farxiyo maadaama iskuuladii ma aragtay ay ciyaalku de kala dabaqad yihiin ilmihii kale marka wax loo iibiyo anna ilmahaagu ku soo weydiinaya markaasi waxaan maamooyinka oran lahaa dhaqaale sameeya sida hadhowtoona ciyaalkeenu aynu ciyaalka kale aynu u quudin oo isha ugu jaleecin markaas waxa fududeynaya time management adiga oo waqtigaaga maareeya waqti ciyaalka la joogayaan waqti ma aragtay maadaama internetkan aw telefoonku noogu wada jiro meel alla meel kasta oo fadhiisatid habeenkii waqtiga aad heshid subaxdii intayna ciyaalku ugu soo kicin waqtiga yar ee heshid inaad kala tuurtuurto markaasna dadkii kula soo xiriiran aad wada jawaabto waqti kasta aw minid yar oo fursad ah heshaba aad dadkii la sheekayn kartid alaabtaada time management iyo waqtiga aad maareyso bay kugu fududaanaysa maamooyinkan waxa oran lahaa maanta isha dhinacan ku haya waa ayo dhaqaale ayaa jira waa tahay kulli Fadxiya hadii sameeyso horumarka hooyooyinka kale ee Soomaaliyeed iyaguna way sameyn doonaan iyo qof walba horumar u baahan Fadxiya waa maxay sababta aad u dooratay company-gan ما شاء الله company-gan horta waxa uu doortay ugu horeyn productiga alaabaha oo soo saaro aad iyo aad ay tii u leeyihiin fashion-ka dan dhinac dhigo fashion-ka meel kasta laga heli karaa laakiin productiga ma aragtay skin care-ka ahaato fountain of life dhalinyaro oo soo jiitay sida aan company-ga ugu soo biiro taas oo ah dhaladan yar inta qof ee ka faa'iido caafimaad ahaan yaabkaagu waad yaabaysaa sida ugu horeyn dhaladan yar waxa weeyaan caafimaadkeennii ayay dhamaystiraysaa annaka maadaama qofku inuu caafimaad qabo wuxuu u baahan yahay inuu wax cuno wax kasta inuu cuno maahine waa wax jirkiisa fiicneynayo inuu cuno
ilaahay wuxuu noo soo bandhigay khudradii cuntadii kale ayuu ilaahay banaanka inoo soo dhigay laakiin dadkeenu ma isticmaalaan oo badi waxay ka jecel yihiin cuntada dib loo habeeyo oo produit raffiné baa la yidhaha faransiiska qaybta kalena waxa weeyaan refined oo daqiiqdii oo laga saaray gankii iyo wixii oo jirka bani aadamka faa'iido u lahaan lahaa oo laga saaray ayay cunayaan markaasna dadkii waa ku xanuuno badan ayuu jirkii soo saaraya waayo wixii loogu baahnaa ugu talagalay ilaahay may cunayaan khudradii oo dhulka kasoo baxaysay lama cunaayo juice oo sonkor laga soo buuxiyey dadka cabayaan marka juiceka sonkorta laga soo buuxiyey jirka way ku fadhiisanayaan markay ku fadhiistay dhaladan yar waxay sahlaysaa inay wixii wasakha jirka ka saarto marka qofkii caafimaadkiisa sida uu ahaado uu joogo ilaa dhimashada horta lagama carari karo oo qofka cararaya ma jiro laakiin qofku bani aadamku inuu caafimaad ku noolaado maskaxdiisa u fiican tahay waayo qof ka fikiraya meeshana ay xanuunayso horumar kale maba ka fikir karo horumar kale laakiin qof caafimaadkiisa oo had iyo jeer caafimaadkiisa ka waramayo oo si fiican oo muddo fiican seexanayo oo daalaynin oo ordaya wuxuu hammi ku yeelan karaa inuu dayaxaad hammi badan buu samaysanay laakiin qofka had iyo jeer xanuunsan hammi kale ma laha alla maanta jilibkana ay xanuunay alla maanta wadnaha ay xanuunay alla dhabarka ay xanuunay ma ahina wax kalaba ma ka fikir karo marka dhaladan yar waxay sahlaysaa in jirka bani aadamka ay aad iyo aad u kaabto markaas taas ayaa i soo jiitay taas oo markuu qofkaas dhalada yar isticmaalo fountain of life kala yiraahdo waxa la wixii wasakha ay soo dhaafiso sida warqadda ay u duulayaan marka tacliin barataya shaqaysataya business ka samaysataya marka adiga ku taala marka taasir ayaa i soo jiitay markii dambana qaabkii internetka ganacsiga looga samaysanayay ayaa i soo jiitay oo kale oo kaas waa number 2 maxay ahayd qaababkan oo affiliate marketing waxa weeyaan adiga imika restaurant baan ku sheegay matalan su'aal cadaan example ku siiyo restaurant baan soo arkay restaurant kama ka hor heblaayo alla restaurant halkana macaan jirta dee qofka iska tagay qofkaad u sheegtay kasmeena restaurantkii ma oga qofka u soo tabiyay warka dee ma siinaya marka alaabtiisu ka iibsanay uu madaraka khalaaska tamarkiina uu iska soconay laakiin kabaniga wuxuu sahlayaa inta aad u dhaxeeyo noqotid sidii dilaalin oo internetka ka shaqaysta oo marka qof u tilmaantino adigana xaqa dilaalkaaga xaqa abaalmarintaadi ayaa lagu siinaya alla thank you naam dadka intaad noo soo sheegtay waa tan abaalmarintaadi taas ayaa qaabkaas looga shaqaysta waa dilaalin sidii dilaalkii dee aynu naqaanay ariga marka la iibsanay Soomaaliya oo qofku arig fiican u soo heli jiray qofka kale neefka fiican raba qofkii u dhaxeeyay dee wuxuu oranay waraa waa kan xaqaagi xaqashahaagi waa kan waa sidii oo kale waa dilaalin internetka oo casriyaysan ayaa la oran lahaa labada qaab ayaa isu jiitay productiga kalena ha kala reebin sida tawajiga finankii ay iga baadisay ilkaha cadaynta oo madaragtay chemicalkii laga saaray ilkaha qurux iyo dhalaal ay kaaga soo bixinayaan waxaan koorimo kala sheegi karo hadaa maanta u fariistay laboratory inaan dhameey waayaa laga yaabaa insha Allah laakiin ka badiyeen waxa oran la productigiisa waxaan koorimo wax gaaraya malahan aad iyo aad kallay waa product aad u qiimo badan quality leh ma jiraan maadaama aad ka soo sheekaysay alaab aad u qiimo badan inuu kabanigu soo bandhigo hal iyo laba ma nooga sheegi kartaa alaabadii adiga shakhsiyan aad ku saameeyay haday noqon lahayd healthiga skin care-ka iyo qaybta ilkaha hal iyo laba noogu soo koob wixii ku soo jiitay productiga intaad isticmaalayso aniga horta number 1 waxa productigan aad ka u qiimaha badan isoo jiitay waa fountain of life dad badan aan uga sii faa'iideeyay dadkaas oo xanuuno kala duwan qabay sida ha ahaadeen macaanka sida ha ahaadeen qof kansar ku dhaco oo kale oo ka faa'iideyso oo khafiif baan noqday oo yiri qofkaasi sida aniga ahaan hadaan ka hadlo xataa sida oo
active-nimada maamada oo kale saddex bil baa oo isdaba jooga ayaan isticmaalay 3 bil warqad sanad waliba haddii qofku maad aragtay xanuunkiisa dabaqada ay yahay ayay kala gaarsiisay anu already markii hore waa iska joojiyay sonkortan badan iyo saliidan iyo wax badan oo nafteeda ka bedelay ya haddana mar alla markii aan Fountain of Life qaatay aan inaan warqad sidii warqad inaan duulaayo oo kale nacam shaqadu waxba inaan haddaan lugayo waxba maasha Allah ya oorilaha talabaad ay soo jiidatay waxa weeyaan shaambada timaha ee dumarka shaambada timaha oo maadaarta maamooyinka badi ka jajaba marka tintii oo aad laf igu yeelatay oo tintii oo xoog ina hadda koofeer ka soo baxay oo maadaarta meelka salonka oo timaha lagu hagaajiyo aad igu qurux badnaad waaba la dhacay waxaan idin tintii hadda salon kasta Djibouti ahaato meeshana ahaato salon kasta tintii wax saa u hagaajiyay maan arag tintii oo xoog igu qurux badnaad saddexaad hadda ka hadlo skin care-ka wajiga oo maad aragtay finan gudgud marka finanku ka baa gudgud iyo finan aan ku lahaa mar hore inta sibiil ay wajiga iga dhigtay ayay sibiishiina ha ka dhigtay nuurkii hoosta ayay soo saaraysaa markaas waxaad oranaysaa qofkan da'daada waad ka yaraanaysaa waxaad oranaysaa qofku markuu iga yiraahdo intaasan jiraa markaan idhaaho oo laguma moode ayaa la iga yiraahdo oo nacam sidee nacam u noqotay laguma moode markaas taas ay cajibisay marka maadaama aan dumar nahay waxaan jecelnahay inaan xilli kasta yaraano oo age-keena wax ka yar loo nagu tilmaamo markaasi taasaan xoog ugu sii faraxsanahay kuwa kalena waxaan ku yiri qiimadooda haba soo koobin inkastoo waqtigu nahaayo oo maad aragtay su'aalo kalena aan sugayno insha Allah way ku wardooni doontiin horta customerada soo dhawaada leeyahay productigan horta way ku wardooni doontiin qof kasta oo dhadhamiye amba madax marsaday amba waji marsaday feedback-kiisa iyo qiimadiisa meel kasta ayuu ku soo qorayaa maanta inta galanayna waxaan leenahay ku soo dhawaada oo ogaada company-gan product buu haayo waa tahay dad badan inay ka faa'iideysteen barjiinaya ama ka faa'iideysan doonaan markuu codkaagu gaaro alaabada qiimaha leh aad ka soo sheekaysay sidee u shaqeeyaa company Oblas Global Fadxiya waxa weeyaan qaab online ayuu u shaqeeyaa sida website-da caalamka lagu leeyahay oo dhan oo kale u shaqeeyaa laakiin waxa uu kaga duwan yahay website-da iminka website-ka click ku siiso maad aragtay alaabta uu ka iibinayo kale laakiin iminka qaab nooc kale ayaa soo baxay ee dadkii ay kala wada faa'iideysanayaan markaas waxa ay noqotay laba dabaqadood adduunka inuu u kala baxay qayb فقيرة سيقيب حو غني ونقطة مركز سدا سيدي اسكو ودا دبا هوس نولادان سيدو اسكو ودا دبا هوس نولادان waxay uu soo saaray company-gan qaab la isku wada daba hoos noolaanayo kan lacagta oo gabi laga wada faa'iideysan kan lacagta oo soo galinayo gabi laga wada faa'iideysanayo markaas waxay fursad u taraysaa in dadkii ay madaragtay koobka biyaha badda Ilaahay noogu wada talagalay oo koobka biyaha ka laga wada darsado waxa weeyaan waa la qaybsanaya dhaqaalihii qaybsigii oo kala weeyaan drop shipping madaragtay affiliate marketing oo company-ga wax la wixii customer service alaabtu hadday habsaanto alaabtu hadday jajabto adiga waxaas oo dhan company-ga dusheeda tahay kaliya adu qofkii customer-ka qofkii ku soo biir waxa laga rabaa inuu macluumaadkii qof kale u sii sheego alla company halkan jira waxaas markuu qofkii ka soo iibsado waxa kale ee shaqadii kale waxa shaqo kule company-dii ayaa u geynay customer service isaga telefoonkii ka qabanay isaga account-kii habeynay isaga lacagtii ka jaray isaga marka qiimadii isaga accountant-kii isaga sameynay isaga sawiraantii soo gelinay isaga mad aragtay hagaajintii editing-kii iyo wax kasta isaga diyaarin adiga waxa lagu yiri link-iga la wareegayso dadka uu sheegay waxaan halkan baa jira markaas adiga shaqadaada waxay tahay inaad share garayso dadka loo wadaagtay company-giina shaqadii kale oo dhan sida uu qabanay sawira ha ahaato madarka account drag xisaabinaya isaga waxa shaqaaleysiinaya adigu ma dirin waxa la leeyahay intaas ayaa lagu shaqeystaa taasna waa fursad aad iyo aad ugu fiican qofku intuu dhulka cadaabni lahaa oo lali lahaa
sidoo maamooyinka oo kale dadka waaweyn ee guryaha iska fadhiya dadkaasoo kale xoog iyo biyo uga faa'iidaysanaya iyagoo lacag ka samaynaya dhaqaale iyo caafimaadna ka helaya waxaan ku waxa oran lahaa qaabkaas ayay u shaqeeyaa qaabka aan Soomaalideena inaan dunida kale badi way wada fahansan tahay ilaa in yar mooyaane Soomaalideena inay meel kasta dunida joogaan ay ka faa'iidaystaan ayaa oran lahayn kuna soo biiro soo dhawaada taas ayaan kaga bixi soo dhow su'aalaha kale aad baa u mahadsantahay walaasha Fadxiya sida wanaagsan aad soo koobisay su'aalaha dhaqaale intee ayaa laga samayn karaa kambaniga Oblas Global maadaama aynu ku wada sheekaysanayno horumar hadda jira waliba online ka jira adiguna aad ku jirtid wax badan aad ka soo aragtay bal wax yar u taabo maadaama qof walba uu danaynayo inuu dhaqaale sameeyo wallahi ma sha Allah dhaqaalaha haddaan soo koobo oon idhaahdo range ayaan siinaya inta ugu yar oo samayn karo qofka ilaa inta ugu badan oo gaari karo horta waa infinity waxay ka dhigan tahay waa xuduud ma laha waa inta iyo kartidaada haddaad maanta iibiso $1 oo $20 kugu jirto waa kartidaada haddaad iibiso 1 milyan oo maadantay qiimo waa kartidaada qof kasta kartidiisa ugu fiican laakiin dadka inta ay dadka bilowga waxay ka sameeyaan sida $100 $50 wax sameeyaan $50 maanta dariiqa lagama heli karo maxay dadka ugu badan hadda soo taabsadeenba markaasi dadku waa kala duwan in $1,000 bay ka sameeyaan in $2,000 $3,000 bishii dad 4,000 dad ilaa 40,000 bishii ka sameeya ilaa 1 milyan ay jir ilaa 5,700 halka milyan standard maaha waa inta qof ay ka iibsatay bishan ay ku xiran tahay bilbil wax oo badan lagama iibso bilbil wax aad u badan laga iibsan waa sidii dukaan dariiqa ninka furtay dad badan oo soo galay maalin kasta asaaqdeeda leedahay waa sidaas ayaa loo shaqeystaa maalin kasta adigu markaa soo bandhigtid dukaankaaga muftaxi ku furtid linkigaaga dadkii la wadaagtid of course ya arsaaq ya fatax dukaan hada albaabada u furtid magaalo kale wuxuu ku soo galay waa sida weyn internetkana kulli wuxuu baa arki marka internetka ka xayisiisid oo click linkiga ku siino ku soo booqani oo waxna ka iibsan qof waliba iyo kartidiisa iyo sida uu dukaankiisa u furaayo qof iraahda xaafadan fadhiya oo dukaan ma furaayo cidina waa garan mayso dukaankaas hadduu laakiin qof kastaba ka laho oo dukaanka albaabka u soo furo sidii aanu naqaanin dukaanadeena caalamka waa laga iibsanay wax hadduu iraahdo laakiin anigu waxba ma waxaynayo halka baan iska joogayaan cidina wax ka iibsan mayso waa sida weeyaan aad inaga faa'iideysto marjiinaya qofka doonaya inuu ku soo biiro kambaniga Oblas Global ma noo sheegi kartaa dhaqaalaha ugu yar oo ku darsan karo ama ku bilaabi karo horta kambaniga Oblas Global waxa uu kala waxeeyay 3 dabaqadood dabaqad afraad aan soo raacdo kaasna 24 hours kaliya hadii socota laakiin 3 dabaqadood ayaa loogu soo kala biiraa lifestyle advisor iyo promoter iyo waxa guudta ugu horeysa retailer la yiraahdo ta ugu hooseysa waa $225 ilaa $275 hadda ayaa laga dhigay intaas oo dollar oo Kanadiyaana markaas Mareykanka loo soo bedelo adoo ilaa $200 hadda isku geegeeyo intaas ayay noqonaysaa $200 retailer waxa ka dhigantay anuba iibsane waa ka sii iibinaya oo percentage baan ku leeyahay promoter no waa sidaas oo kale percentage qofka retailerku oo ka heli lahaa percentage yar oo ka yara sareysa ayuu ka helayaa advisorku laakiin qiimo badan iyo albaab badan oo furan ayuu leeyahay lifestyle advisor qofku markuu ku soo biiro oo dabaqada ugu sareysa ee maad aragta lagu soo gali karo kambaniga waxa ay tahay in ay generational waxay ka dhigan tahay entire wixii oo kambaniga ku jira ee kuwii ka sareeyay iyo kuwa ka hooseeyo uu keeni doono lacagta ay iibsadaan amba alaabaha ay sii iibiyaan oo isna oo percentage calaashan wax ka heli karo waxay ka dhigan tahay dadkii intii ka sareeyso dhan gacantaada midigta bada fadhida waxa ay iibiyeen bishan ay wixii soo iibsadeen waxay iibiyeen
ayaa lagaa siinayaa mother commission gacanta bidixdana wixii ay dadku iibsadeen yaa commission lagaa siinay markaas dad kale haddii ay kugu soo biiraan intaartiinka faa'iidadii sare ee faa'iidadii hooseba labadiiba waa isku darsanaysaa markaas lifestyle advisor ay dadku badi ku soo galaan laakiin qofku siduu dukaankaaga linkiga u helo xuduud ma laha retail $200 soo gali kara qofka kale $775 waa promoter waa qaybtii dhexe advisorkana waa $1,800 oo u dhiganta ilaa $2,000 weeyaan oo Canadian haddii macal taxka miya waxaa marka lagu isku wada daro taasay saddexda dabaqa waa lagu soo gali karaa waxaa jira marmar uu company-gu yiraahdo intaas baa la ka qiimo dhimis aan u sameeyay 4 saacadood gudahood qofka uu ku soo galo $1,500 buu lifestyle advisor ku soo galay qofkan waa haduu ka gaarsiiyo inta ay company-gu soo bandhigtay taas weeyaan saas oo kale saddexda qaybood baa lagu soo galaa laakiin qaybtaana company-ga ugu qoray dadka waa tahay aad baa u mahadsan tahay Fadxiya waxaan rajeynayaa in laga bogtay su'aasha oo dad badan ku taagneed qaabka qofku u bilaabi karo una soo biiri karo maxaad u haystaan dadka Soomaaliya jooga maadaama aad ka hawl gashid 204 wadan uu ganacsigaagu gaaro dadka Soomaaliya jooga fursadan ma ka faa'iideysan karaan si fiican walaal Maariya qof kasta oo maanta dunida jooga waa ka faa'iideysan kara qaabka Soomaalida inta aan waxaan leenahay aad sugaysiin dawlad kaliya haatay maanta internetkii ayaa waxaan ku yiri dadkii ay ka wada cashaynayaan ku soo biiraan nololaha cashada inaguna qaybsada inta aad shaqo iyo maad aragtay dawladda caadaleecay lahaydeen nololaha dawladii shaqada siin halkan sida nooma yeelin marka adduunkii baa Ilaahay balaariyay oo arsaaqadii meel kasta ay taala oo bad iyo bari bay kala jibisay marka maanta internetkuna kuwaas ku jira Ilaahay fursada uu soo bixiyay caalamka uu soo bixiyo ku jira markaas waxa orlaha qaabkiina dadkiina Soomaaliya jooga internetka ku soo biira maadaama teknolojiyadiina ay soo gaadho oo ma aragtay internetkii telefoonkiiba meel kasta aad la joogtid inta aad waqtigiina ku khasaari lahayd sheeko iyo ma aragtay maal awaal iyo saacad inta inaga dhacayso maxaa la yiri iyo maxay heblaaya tiriyo maxuu hebel yiri iyo maxaa ma aragtay maanta social media ka socdayo heestee soo gashay inta ku mashquuli lahaydeen meeshan internetka ku mashquula orlaha lacag iyo dhaqaalan aad ka heli lahaydeen oo Ilaahayna arsaaq wanaagsan iniga soo saarayo laakiin qiila waqaala hada saacadu inaga dhacdo waxaan ku iri dhaqaalana heli maysin qof baana dhaleecaynaysin if iyo aakhirana inaad ku siigtiin ayaa laga yaabaa ma aragtay hadalka oo la tuurayo qof hada caydid oo dhaleecaysid oo waqtigaaga meel aad faa'iido lahayn hadaad gelisid waxaan ku iri waa qof if iyo aakhira ma khataare aanu u arkaayo waayo haddii laakiin faa'iido iyo meel fiican iyo horumar iyo socod iyo waxa hadaad gelisin waqtigiina waxaan ku iri waxaan leeyahay ma aragtay Soomaaliya New York iyo Dubai ba dhaafsay ayaan arkaynaa insha Allah dhalinyarteena inta waqtiga nigaga dhici lahayd inta shukaams iyo sheeki iyo wax aana saacadu inaga dhacda internetka ku mashquulo horumarka ku mashquula ma aragtay dawladkeena oo horumarin lahayn hal lagu mashquulo insha Allah saasan oo la telefoon gabigiina wada haysatiin inta aad ku isticmaalaysid bilaa macne ku isticmaal meel faa'iido leh taasan oo laha Soomaaliya meel kasta ee joogtiin wad ka faa'iideysan kartiin gabadheena ma sha Allah Maariya aad iyo aad sidoo kale iyadoo oo Soomaaliya wadkeena Hargeysa agteeda joogta ceerigaabo ay hadda ma aragtay adduunkii online-kii ay saa u kala jibishay ma sha Allah waa saasoo kale walaashii Maariya example ku qaata oo ma aragtay iyadoo wadkii joogta hadana jecel inay meel guulo waaweyn ka gaadho adduunka ay rajeynayso taasoo kale ku dayda ayaa orlaha waana ku salaamay Maariya aad baa u mahadsan tahay Fadxiya waxaan rajeynayaa dadaalo fara badan aad gelisay online-ka iyo horumarkaba insha Allah tacaala dad badan aad uga faa'iideysay inay gaareen ama wax badan ay u soo kordhisay insha Allah tacaala intuu codkaagu gaari doono inay ka faa'iideystaan barnaamijyada fursadan Fadxiya muxuu yahay qorshahaagu
maasha allah qorshahayga sanadaha soo socda waxa uu yahay in aan meel kasta ee Soomaaliya ay joogto oo internetka waa inay meel heer sare ka gaaraan in waddankeena xidigta shuruuro gaarsiina ayaan rajaynayaa oo maad aragti sanadaha soo socda laakiin gacmooda jir bay wax ku gooyaan haddii aanan gacmooda jirkii aynu ku goynin dhinac ma ibeelahsan baan oran lahay dadkeeni ayaan doonayaa inaan meel kasta oo maad aragti caafimaad iyo dhaqaale waa labada adduunka maanta ay isweydiinayaan caafimaad qabtaa lacagna mad haysataa waa labadaas la isweydiinayaa diintu insha Allah muslimkeena waa ilaahay diinta iimaankii way noogu daray laakiin adduunka oo dhan waa labadaas nin caafimaad qaba oo maad aragtay si fiican u socda si fiican u soo sare kacay ayaa horumar ka fikira oo salaad tukada oo taraawiix tukada oo sare joogi kara intaas oo saacado caafimaadkiina ka banigan oo haya dhaqaalihiina waa ka sameyn kartaa markaas waxa weeyaan way jumladaysantaan u malaynay waa caafimaad iyo dhaqaale waa laba jumladaysan markaas qorxda ku soo biiraan oo lahaa aan iswada gacan qabsano insha Allah horumarka adduunkana aan ka wada sheekayno insha Allah sanadaha soo socda bulshadu waa meel balaaran waa Soomaalida oo meel sare gaadha waa Djibouti iyo qaashada Soomaaliyeed oo meel sare gaadha ayaa aan rajaynayaa insha Allah sanadka 2023 wax badan inaan soo guulo ka soo dhalin doono ayaa rajaynaya insha Allah aad iyo aad ilaahay qorshaha ku rumeeyo iyo dadaaladaas ku jirtidba si gaar ah waan la socdaa qofka doonaya inuu Fadxiyo la soo xiriiro halkee ka heli karaa Fadxiya qofka doonaya inuu la soo xiriiro social media meel kasta oo ay dukaankaygu yaalo magacayga Fadxiya la idhaahdaa dukaankaygana Ultra Luxury Shop ayaa la idhaahdaa waa Ultra Luxury waa wax oo maad aragtay dee waxaan ku diamond oo kale oo adduunka yaalo oo kale uu la magac dhigay oo dukaan online aan ku leeyahay insha Allah Maria ay soo dhigi doonta halkaas aad igala soo xiriiri doontiin walkamaan ilaahay qofka doonay inuu horumar fiican u socda ayaan leeyahay soo dhawow walaalkow walaashay insha Allah waqtigeenu meel kale kaaga khasaarin adduunka horumarkii kaalina la janqaad ayaan ku oran lahaa meel kastana waa laga heli karaa insha Allah Maria ayay soo dhigi doonta maxay tahay talada ama fariinta aad u reebisay dadkaaga Soomaaliyeed maasha Allah dadkayga Soomaaliyeed waa dad aad iyo aad u qiimo badan waa dad aad iyo aad u aqli badan anigu waxaan oran lahaa dadkeena Soomaaliyeed waa dad aad iyo aad u aqli badan laakiin waa inaan aan barno maad aragtay teamworkigi mid waliba goonidiisa uu iskaga cararaya laakiin teamworkigi waa inaan wada shaqayn isfahan isku soo jeesto war sideen horumarnaa war sideen talaabadan ma ayna talaabo ka sii weyn sideen u gaari karnaa wada shaqayntii inaan wada shaqayno taasaan u soo gudbila wada shaqeeya meel kastoo joogtina isleeyina ee wada shaqeeya horumarka ka wada shaqeeya soo socda adduunkii maanta waxaa ku xidigtii shuguraa laga soo sheekeeyay Mars baa laga soo sheekeeyay dayaxii anagoo aan arkayno baa laga soo sheekeeyay waana Soomaali halka scientist wayna soo saarno wayna dhaqaalahan ku soo saarno ciyaalka jiilka soo kacay waa inay adduunka sare nooga soo sheekeeyaan taas oo oran lahaa horumar wacan baa oran lahaa maamooyinkana waxaa sii oran lahaa ciyaalka waxaan ku weyna xidigaha nooga soo sheekeeyaan maxay ku soo sheekeyn kar dhaqaaliye caafimaadkii baan ku haynaa maama hadaa tahay horumar baan ku haynaa awlaadiyuunan maad aragtay meelaha hoose kaaga sii fadhiisan wayna horumarka raacisan baan ku oran lahaa lagu soo biir maama hadaa tahay horumarkana kaale noola janqaad maasha Allah waxaan rajaynayaa talada weyn ee Fadxiya idin soo gudbisay inaad ka faa'iideysataan meel walba aad joogtaan aad baan kaaga mahadcelinayaa walaasha Fadxiya waqtigaaga aad u kooban inaad noo soo hurtay noogana faa'iideysay fursaddan aad haleeshay weliba waqtigan waana kaaga mahadcelinayaa mar koowaad iyo mar labaadba
ما شاء الله ولا شيء ماري آد أياد وما تصدق كلا مر لبعض دادي مصمرتي قاضي مشاري bulshada aad jeceshahay inaad codkaaga gaarsiiso oo dadka walaalaha Soomaaliyeed meelaha sare gaarina aad u soo bandhigto sida ay ugu daydaan intiina kale ma sha Allah yaan ku leeyahay hore u soco walaashay Maariya